يا حافظ القرآن هاكم فرحة فلقد بلغتم ختمة القرآن. ما أروع اللحظات حين تصرمت أوقاتكم في لذة الإيمان. يا حافظ القرآن هاكم فرحة فلقد بلغتم ختمة القرآن. ما أروع اللحظات حين تصرمت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، waxaan bilaabi doonaa haddii alla yiraahdo darsigii tafsiirka quraanka kariimka ahaa oo aan ku ballansanayn. quraanka kariimka ahi waa hadalkii Allah subhanahu wa ta'ala. maadaama uu hadalkii Ilaahay yahana waa hadal lagu waramo hadalka ugu fadliga badan uguna wanaaga badan. maxaa yeelay hadalka qiimihiisu wuxuu ku xiran yahay cidda hadalkaas ku hadashay qiimaha ay leedahay. hadalka Allah subhanahu wa ta'ala waa hadalka hadallada ugu qiimaha badan, ugu qaayaha badan, ugu fadliga badan. saadarteed Allah subhanahu wa ta'ala hadalkiisa markuu soo dejinayay oo samaawaadka iyo looxul mahfuudka laga soo dejinayay wuxuu u doortay malaa'igta oo Ilaahay abuuray malaga ugu fadliga badan inuu u soo dhiibo. malagaasoo la yiraahdo malakul jibriil. waxaa kaloo loo doortay xagga dadkana cidii dadka ugu fadliga badneed oo nabi maxamed alayhi salatu wasalaam. malaa'igta malagii ugu fadliga badnaa waa loo soo dhiibay. waxa lagu soo dejiyay oo loogu soo dhiibay bani aadamka iyo dadka nabigii ugu fadliga badnaa oo nabi maxamed alayhi salatu wasalaam. wuxuu nabigu markaas ku sugnaa alayhi salatu wasalaam quraanka soo dejintiisa la bilaabayo lagu bilaabayo soo dejinta quraanka lagu soo dejiyo dhulka Ilaahay subhanahu wa ta'ala meeshii ugu fadliga badneed oo Makka ahayd. waxaana nabiga alayhi salatu wasalaam quraanka lagu soo dejiyay habeenada Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu abuuray habeenkii ugu fadliga badnaa oo laylatul qadri aha oo bishii ramadaan oo bilaha ugu fadliga badneedna ku dhex jirtay. kitaabka Ilaahay marka subhanahu wa ta'ala oo aan bilaabayno tafsiirkiisa iyo macaanidiisa inaan wax iskaga sheegno waa hadal lagu waramo midka ugu fadli badan, ugu karaamo badan, ugu qiimo yaqaaya badan, ugu wanaag badan. Allah subhanahu wa ta'ala quraankiisa meel badan oo kamida wuxuu ku sheegay quraanku fadliga oo leeyahay. Allah wuxuu leeyahay subhanahu wa ta'ala حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في الكتاب لدينا لعلي حكيم. قرآنك إلهي وحليه سبحانه وتعالى وكتاب واضح وعد حقنا ضدك وعديه وأكل صار حق يا باطلك. وأنا اللغة العربية كسو دقا إلهي سبحانه وتعالى محال اللغة العربية لو كسو دجيه لعلكم تعقلون أي لكي تعقلوا يسوف هنتان وإنه في الكتاب لدينا لعلي حكيم. إلهي سبحانه وتعالى لوح المحفوظ كان قرآن كان لقى كيني وحيابي لوح المحفوظ كي لي wax kamida waayo quraanku. Allah marka subhanahu wa ta'ala quraankiisa fadligiisa aad u sheegay. nabi walbana Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu siiyay mucjizo ayadoo kale ambiyada lagu rumeeyo. wala socotaan nabi Muuse alayhi salatu wasalaam waxyaabihii mucjizooyinka looga dhigay waxa kamid ahaa ushii uu tuurayay bahalka isku bedelaysa iyo gacantii nabi Muuse alayhi salatu wasalaam oo dhinaca inta galiyo kadib soo bixinaya iyadoo ololeyso ifaysa iyo aayado fara badan ayaa lagu taageeray nabi Muuse alayhi salatu wasalaam. nabi Ciise
waxyaabihii lagu taageeray waxa kamid ahaa inuu dadka dhintay soo nooleeyo biidnillaahina ku soo nooleeyo calayhi salaam cidii baras qabta oo masaxo kadibna barasku qofkaas uu ka bugsoodo cidii indhool ah oo indhalaanta ku dhalata inuu masaxo oo indhaha u masaxo kadibna indhuhu fag u dhahaan waxyaabihii mucjisooyinka ahaa oo nabi ciise lagu taageeraa arrintaas ka mid ahayd nabi saalix calayhi salaatu wasalaam oo ambiyadii hore ka mid ah qoomkiisii markay ku xujeeyeen buurbuuraha ka mid ah inay inta buurtu foolato ay neef xoolaa dhasho ilaahay subxaanahu wa tacaala arrintii saas ahayd waa u fuliyey nabi saalix xujadii qoomkiisu ay ku xujeysteenna waa la furay markaasaa buurbuurihii waagaas dadkaas ay agdeganaayeen ka mid ah ayaa foolatay waxaa foolaa waa buurtiina waxay dhashay neef xoolaa iyo hal fool hay dhashay mucjisooyinkii ambiyada hore lagu taageeray waa wax ka mid ah nabi maxamedna calayhi salaatu wasalaam mucjisooyinkii lagu taageeray mucjisada ugu weyni waa kitaabka quraanka nabiguna calayhi salaatu wasalaam xaga mucjisooyinka waa ahadka ugu mucjisada weyn ambiyada ilaahay markii la fiirsho saadarteed nabigu calayhi salaatu wasalaam asaga ugu atbaac badan ambiyada ilaahay nabi la soo diro nabiga uu dadka badan oo loogu rumaynta badan yahay waa nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam mucjisada ugu weyn oo lagu taageerana waa kitaabka quraanka waa kitaab kariim ah ilaahay uu ku sheegay laa yaatihi al-baatilu min bayni yadayhi wala min khalfihi tanziilun min hakiimin hamiid wa ila shayha wa dhowran yahay hadallada dadku way isburiyaan way iska hor yimaadaan akhtaa laga soo saara laakiin hadalka ilaahay subhanahu wa ta'ala ومن حكيم حميد لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد إليه سبحانه وتعالى سادرتيد ما دام معجزة نبي لو تاجر معجزة وينت أو كتاب القرآن كاي هي قال لي حل النبي جوكت عليه الصلاة والسلام مركي النبي اسكت تاجين إن كرهنا النبي نبديس عليه الصلاة والسلام قرآن كالنبي لو سودجينا إذا وبين أبور الله سبحانه وتعالى وحويري waxaa tiraahdaa nabi maxamedow hadii quraanku been abuur yahay arabatihiine codkara iyo shucara iyo gabyaaya idin ku jiree waadna tira badan tihiine bal quraanku kala been abuurta ilaahi wuxuu leeyahay subhanahu wa ta'ala qul la in ijtama'at al-insu wal jinnu ala an yatu bimithli hadha al-qur'ani la yatuna bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira jinni insi haday iskaashadaan quraankaanu kala ma karaan ilaahi subhanahu wa ta'ala wa mu'jiz markale ilaahay wuxuu yiri 10 suuradood oo quraanka suuradiisa oo kala hadii quraanku been abuur yahay been abuurta qul faatu bi 10 suwarin mithlihi muftariyat wad'u man istata'tum min duni illahi in kuntum sadiqin cida rabtaan kaashada arabi ajam jinniye insi waxa rabtaan kaashada quraanka oo dhan laydin ma dirin quraanka oo dhan ma laydin diray laakiin hadda 10 suuradood oo quraanka suuradiisa oo kala oo been abuurateen adinku la imaado la kala hadii quraanku been abuur yahay والله ما واين وايكين واين سيوكين أيام قرآن وهذا الإله سبحانه وتعالى هذا الإله يوكل بن آدم اسكما أذكره هذا رنتي واللوغسي تنازلي طبعا سورة وبضنتهاي هل سورة الله دري إله وحده سبحانه وتعالى قل إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله haddii aad ka shakisantihiin dadow wixii aan ku soo dejinay rasuulkeena Muhammad ah waxaad la timaadaan hal suurad oo quraanka kala la imaada cid rabtaan kaashada waa la awoodi waa mucjiso marka nabi lagu taageero mucjisadii ugu weyneed waa kitaabka quraanka sida kitaabka quraanka agtanada ku yahay iyo ilaahay agtiisa kitaabka quraanka soo ku yahay waa kaafiya kala dheeri waa mucjiso culus عرب يور أيات تاجن يا قرآن كلا كينا يا طبعا سورة القرآن كلا كينا طبعا سورة وبدن ته سورة يا كينا قرآن كلا إن عقينا وكلا يا سكدي كرا إني بيان أبورتان أو قرآن كلا وعربان هذيك سدينه وقت عربان هقاتينه عرتاسي ورتاس وحي تاجن تهي كون يا أفر بقول يا أفرتن سنة كبدني تاجنت عيد كجوابتنا ولا لا عيد كجوابتنا ولا لا كتاب كان الله سبحانه وتعالى كتبته روح وجدوي أصيا وحو كفالة قاضي الله سبحانه وتعالى وبلن قاضي إنه إلى شناي إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون إله سبحانه وتعالى وحيابها القرآن كله يحفظنا محاكم ده
إن إلهي سبحانه وتعالى أو بردت ونكسن إن الله سبحانه وتعالى أو أسخره ضد كتاب كقرآن كحفظية معنيه سبرتا ضد كبرا ضد كجارسية قرآن كمرك فضل قاسله وحلو بهاي إن دول كلا قاضو معنيه سنة لبرتو حضان معنيه سنة لبرنا أو لفظي سكرية لحفظينا حفظي لفظي سكرية لحفظيه وحا كم مهم سن معنيه سنة لبرتو dadkii hore waa kitaabka aha xumaanadooda ilaahay markuu sheegay subhanahu wa ta'ala waxyaabo ku sheegay waxa kamida inay dadkaas kamid yihiin dad ummiyiin ah ummiyiintu waa maxay waa kuwan waxba aqoon ilaahay wuxuu yiri subhanahu wa ta'ala wa minhum ummiyuna la ya'lamuna alkitaba illa amaniya kitaabka waxay ka yaqaanaan waxyaabaha hididiilooyin ah bis culimada qaar amaanida waxay ku fasireen قراءة بس يأخرسك قرآن كوحي كي يقانان كتاب كوحي كي يقانان أخرس بس لفظي سي يقانان لكن وحكا لما يقانان قرآن كمركو حلوه بهاي هاي معنيس إن لبرتو وحا مهم كان هو معنيس إن لفظي سي أفر يتمنك يبقلك لو وضع حفظيو هداية دقن لقدك تحفظي قرآن كاللي حفظين عيو لكن معنيس أو حبال لقاء أقونين ووحا صومالي حد هيست Soomaalidu Quraanka barashadiisa waa u hidaya dhaqan anigu markii hooyay aaba oo barto 5 sano oo soo gaaro dugsi Quraan hore laga geeyna dugsigaas Quraanku ku jira ilaa 20 sano ka gaaray 20 sano dhowr iyo 10 sano dugsiga lagu hayna macallinku waa iska garaaca Quraanku xifdisiya macnaha Quraanku uma sheego macnaha Quraanka ma baro macnaha Quraanka xooga lama saaro macallimiinta intooda badan كدب waxa soo baxaya anug falaaga ah oo quraankiina aan waxba ka xambaarsaneen hadhowdii isbaaro dhigtay anugi maxaa yeelay isbaaradu inay xaraam tahay quraanka ma uusan fahmin dadkii uu dilay dadka in la dilay inay xaraam tahay muslimiinta quraanka ma uusan fahmin waaridkii ku caasiyay waaridka in lagu caasiya dambiga ay leedahay quraanka looguma sheegin quraanka ma uusan fahmin quraanka waxba kama yaqaano oo macnihiisa ku saabsan macallinkii uu dilay markii dambe wayna dhacday ilmihi marka waxay noqoyaan ilmi khayrka wanaaga ka carara si quraankiiba laga ma dhaadhicin fasirkiisii waxa marka muhiim ah in quraanka dadka markii la bari tago lafdigiisa oo la xifdisiyo iyo macnihiisa oo la baro la isku raaciyo hadii labadoodu la isku wadi waayana waxa muhiimsan quraanka macnihiisa dadka in la baro ilaahina subhanahu wa ta'ala quraanka markuu soo dajiyay waxyaabo u soo dajiyay xikmado u soo dajiyay waxa koo ka ah in la fahmo lagu tadabburo waxa quraanku oo dadka ka reebay laga haro waxa quraanku dadka oo faray la fartoomo waxa quraanku dadka u jeclaysiiyay la jeclaado waxa quraanku dadka u necbaysiiyay la necbaado xikmadaha quraanka loo soo dajiyay kamid saxaabadii nabiga kaleey salatu wasalaam waxay ahaayeen wax yar oo quraanka kamid ah haday nabiga ka qaataan kaleey salatu wasalaam macnahooda waxaas ay quraanka ka qaateenna nabiga kaleey salatu wasalaam ka baran jireen hay'ad nabiga quraanka waxa loogu soo dajiyay xikmadaha loogu soo dajiyay waxa kamid ah dadka inuu u fasiro wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim ilayhi subhanahu wa ta'ala quraanka waxyaabaha loogu soo dajiyay waxa kamid ah dadka inuu quraanka u fasirto quraanku asaga is fasiray nabigu waa fasiray kaleey salatu wasalaam saxaabada nabigu way fasireen culimadii muslimiintu way fasireen quraanka marka fasirkiisa iyo macnihiisa in la bartaa waa in xoog fara badan la saaro inaan quraankiina qaanon xifisanahay laakiin aan nahay dameero kutub sida oo kale annagoo quraankii xifisana dadka aan dhacno dadka aan boobno waalidka ku caasino ilaahay subhanahu wa ta'ala cibaadadiisa aan cid kale la siino waxyaabaha in badan kalifa waxa kamid ah inaan quraanka macnihiisa aqoonin Soomaali waxay meel dhigteen inay yiraahdaan markii la yiraahdo war quraanka maxaad macnihiisa ka taqaanaa madmadoobo Allah ku yaqaana inaan yiraahnaa meel dhigana madmadoobo waxa laga wadaa quraanku qadda ku qorantaa madow marka madmadoobo Allah ku yaqaana ka geemayso quraanka macnihiisa baro waxa nuxur kale waa quraanka macnihiisa inaad barato dadka kale la gaarsiiyo jalsooyinka noocan oo kala oo quraanka Ilaahay lagu baraa fasirkiisa lagu baraana
وجلسوين يفريي أماكن إلهي وكرالية سبحانه وتعالى إلهي وجعليه نبي وحبير عليه الصلاة والسلام وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده يا نبي عليه الصلاة والسلام قولي إلهي ضدكم كلمان أيغو كتابك إلهي أخرنايا كتابك إلهي دراسينايا اسكدغايا اسفانسينايا فهمايا كتابك إلهي إلا هدي دعدنا waxa isku hareereeya malaa'ig ilaahay oo ilaahay uu soo diray subhanahu wa ta'ala xasilooni xaq alla laga soo dirana waa soo degtaa raxmada ilaahayna waa dabooshaa ilaahay uu naxariisana subhanahu wa ta'ala ilaahayna malaa'igta asaga agtiisa joogta ayuu dadkaas ku ag sheega dadkaas oo dad marka aad u fadli badan quraanka ilaahay subhanahu wa ta'ala macaniisa in la bartana waa aad u muhiim badan tahay in lafdigiisa la xifdiyana waxa ka muhiimsan quraanka macnihiisa in la barto hadii la isku keeni karo oo lafdigiisa la xifdi karo macnihiisana la baran karo waa khayr lagu daray hadii la isku keeni waayana quraanka macnihiisa xooga hal la saaro in la barto oo la fahmo oo macallimiintu dadka u dhigaan oo dadka baraan culimadu dadka baraan odayaashu ilmaha baraan hooyooyinku ay ilmaha baraan waaridka iyo waxa dhan ay quraanka macnihiisa ay bartaan oo quraanka macnihiisa ay fahmaan markii la fahmana waa in lagu amal falo oo lagu dhaqmo ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya ilahi subhanahu wa ta'ala kitabkan ilaahi idinku soo dejiye raaca wax kale ha ku dhaqminina wax kale ha raacinina midiga bidix yaan loo leexanin kitabka asaga qaanuun iyo dastuur laga dhigto asaga nagu filane rabbul alamin asagu noo soo dejiye qofkii quraanka ku dhaqmi waaya quraanka bara waaya quraanka rumay waaya quraanka beeniyahina qataru ku jira maalinta qiyaamo qofkaas wuxuu qatar ugu jira asagoo hamuuma oo amoola oo indhool ah oo hamuuma oo gabgable inuu yimaado waxba arkaynin ahlu naarna ilaahi subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay wa nahshuruhu yawm al-qiyamati a'ma qala rabbi lima hashartani a'ma wa qad kuntu basira qala kadhalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadhalika al-yawma tunsa ilahi subhanahu wa ta'ala qofki ilaahi dhikrigiisa iyo quraankiisa ka jeesta oo aan ku amal falin oo aan baran oo aan fahmin oo aan ku dhaqmin maalinta qiyaamo asoo indhoolaa la soo saara kadibna wuxuu leeyahay ilaahayow maxaad indhaha hadda iga qaadatay adduunyada indhaha waa isiise markaas ilaahay wuxuu leeyahay subhanahu wa ta'ala adigaba adduunyada markaad joogtay aayaadkayga ku yimid quraanka ku yimid waa iska indha tirtay adna maanta waa lagaaga tagaa xumaanta iyo ciqaabta aad ku jirto aan xooga saarna marka kitaabka ilaahay inaan fahno yaanana kitaabka ilaahay hadalka ilaahay baaqi ilaahay dhagahayaana ka furaysan ilaahay subhanahu wa ta'ala asagana abuurona arsaaqona maamula inaan caabudnana waa nagu waajib kitaabu noo soo dhiibay rasuulkii maxamed ayu noogu soo dhiibay kaleey salaatu wasalaam kitaabkii wixii ku yiilay hadaan aqoonin wuxuu amraaya aanan aqoonin wuxuu dadka ka reebaya aanan aqoonin quraanku wixii oo noo sheegay hadaan fahmin oo aan isku dayin inaan fahanno maalinta qiyaamo wajiga baxaan noo yaala maxaa yeelay maalinta qiyaamo markaan ilaahay hor tagno hadii ilaahay uu na yiraahdo fartiintii aan idin soo dhiibay ma akhrideen ma fahanteen ma ku dhaqanteen ee aan nidhaahno ilaahayow masaajida kitaabadu oo li jireen annaguna fartiinta aad soo dhiibtay dhag jalaqo ma naasin manaba aanan kala furin hadaan nidhaahno waxa ilaahay aan ka filanayno subhanahu wa ta'ala oo ciqaab ah ama cara ilaahay waa dareemi karnaa ilaahay cariisa uu badbaadno subhanahu wa ta'ala aan kitaabka ilaahay uu noo soo dhiibay fasirkiisa xooga aan saarno darsigeena maanta halkaas noo joogo wallahu subhanahu wa ta'ala ala wa alamu billahi at-tawfiq اللهم من يرى هذا المقطع ومن ساهم فيه ومن أعان على نشره اللهم فاغفر له ذنوبه كبيرها وصغيرها جلها ودقها عظيمها ودقيقها يا رب العالمين kuguma qasbaayo inaad faafiso balse Allah dartii ku faafi